ee weliba ku noqotay arrin uu qaadan waayey. quraankii waxaan ku akhriyay hal fadhi oo kaliya anigoo weliba wiil cadaan weliba wiil kristan arrintaasna waxay ku keentay kadis aad u weyn. qaadan waa ayay igu noqotay maxaa yeelay waxaan ahay qof masiixi fiidiyowgani waxa uu caan ka noqday YouTube-ka iyo sidoo kale weliba TikTok-ga, waxaana la isla dhex mariyay wiil arrin cajiiba sameeyey kaasoo weliba wiil kristaan wiilkani waxa uu xidhay iskoodh aan cidi hore u xidhin, kaasi oo kitaabka quraanka kariimka iyo sidoo kale ka Bible-kaba inuu hal fadhi ku akhriyo, taasi oo u qaadan waa ku noqotay dadkii ku xidhnaa isaga. wiilkani waxa sir badan ka ogaaday kitaabka quraanka kariimka iyo sidoo kale weliba ka Bible-ka, kuwaasi oo isradinaya. waxaanu ku sheegay kuwa kitaabka Bible-ku uu sheegayo inay yihiin arrimo waaliya oo aan caqli gal ahayn. waxaanu yidhi sida tan: